dulqaadka muujiya waxaan jaanis siinaya walaalaha u baahan in sida dhabta loo caawiyo idinka wixiina waa kaftan waa dheedheel ma fahantay kaftan iyo dheedheelna meeshaan looga baahno waxaa jira qof walaala oo si daacada ugu baahan in loo caawiyo marka adiga fadlan waxaa fiican marka hore adiga iska soo bilow anigu waa idin sheegay qofka bini'aadanka asaga ha soo dhiirigeliyo asaga ha soo garab qabto asaga ha is caawiyo kadib waa la caawin karaa laakiin adigoo iska fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaam waa anigoo muusa meesha nagala socotaana waa kulan la bidaar caawiya dhammaan gaashaanbuurta rag iyo dumar waa mahadsantihiin sida sharafta la isku caawisaan anigana adii caawisaan fadlan haddaan nagu cusub tahay subscribe like share comment inta waa kama marna waanu ku mahadsantihiin akhyaarta insha allah mar walbana waxaad ka codsan lahaa fadlan haddaad awoodaan leegta inay i saartaan maadaama aad mataqaanaad aad i caawiseen waqti badan ay caawinaysaan haddana insha allah leegtan igu sii dara ayga baqaylina marka intaasna waa walaaltinimo waa la isku leeyahay waayahay anigana dee iga raali noqo sababta run ahaantii aniga qof bili aadana ahay ma fahantay miihi macnaha robot oo wax walba automatic ugu jawaabi karo maadaama su-aala aad igu fara badan yihiin dee jawaab badanna laiga rabo markaas dee saacad walba 20 qof u jawaabo ama 30 qof u jawaabo dee ma soconayso 24/7 inaan jawaab lee bixiyo ma soconayso ma fahantay qof walbana wuxuu rabaa runta haddii laga hadlo hadduu hadda nambarkaaga arko isla hadda inuu su-aal ku weydiiyo xataa waqti kuma siinayo ma fahantay xataa videoga ma dhammaystirnayo xataa maxaa ka faa'iidaysa ma dhahayo macnaha intaasba waqti ma gelinayo ma jecel inuu waqti kugu bixiyo wuxuu jecel yahay inaad waqti ku bixisid bas ayuu jecel yahay marka fadlan waxaa idinka codsanayaa dadka qaybtood oo run ahaantii aad ii yaqaan dhalinyaro badan oo taqaana jirto heer waxay marayaan ayagoo yaqaano oo intaas aan wada xiriirno bay waxay i weydiinayaan wixii aan macnaa mar hore muddo badan ilaa hadda xaaladda ay socoto ayay i su'aalayaan markaasaan la yaabaa waxaan dhahaa orod videoga kasoo fiiri macnaha waaba videoyaasha dhan ay ku jirtaa markaan dhahay orod video kasoo fiiri kuwii ugu dambeeyo dhan haddii laga soo bilaabo wuxuu muhiimadda i weydiinaya dhan waaba casharada tusaale ahaan ugu fuda idin siinaya waxay tahay hadda saliidda isticmaal waa wada garanaysaan waa saliidda cusub Soomaa okay waxay ku dhahayaan afcad waxay kugu dhahayaan kuma daawano saaxiibow noo sheeg hadda saliiddi ma bilowda waqtigu aniga WhatsApp igula soo hadlo wuu bixiyay suu ku garan waayo horta marka hore bal inta ka wardoon hadda inta ka weydi kadib weydii marka fadlan waxaa idinka baryaa idinka waa idin dulqaadka muujiya waxaan jaanis siinaya walaalaha u baahan in sida dhabta loo caawiyo idinka wixiina waa kaftan waa dheedheel ma fahantay kaftan iyo dheedheelna meeshaan looga baahno waxaa jira qof walaala oo si daacada ugu baahan in loo caawiyo marka adiga fadlan ha iga qasin inaan walaalkaas si fiican u caawiyo adiga su'aalahan macna darrada aad weydiinayso fadlan iga dhaaf waa adigoo in muddo ay yaqaano waa adigoo in muddo ay la soo xiriiray hadiiba qalbiga uu ku siiyay inaadan wixii information waqtigan bilaabo wala socota waxaan bilaabayaa 25 bishii September la soo dhaaf ayaan bilaabayaa okay ilaa intaas way la socotay waa 25 koob ogtahay wixii 25 laga soo bilaabo ilaa hadda saliidan cusub oo isticmaalaya waa u fiirin weyd inaa isticmaalay in kale ani ii soo wacaysa intaasna waxaan u arkaa waa lugooyo aad waqti si la adahay walaalahan aan u jawaabayo sababtoo anigu waxaan rabaa qof u baahan si niyada loo caawiyo inaan waqti siiyo ma fahantay oo ma baahni qof midda kale ay kugu dara xitaa waxaan jeclahay mar walba inaan caawiyo idin sheegay qof qalabkii haysto inaan caawiyo waa jeclahay laakiin qof aan waxba haysanin oo u baahan warbixin video ka dharag qalabka soo iibso waqti waa ku huraya laakiin waxaan u arkaa adiga waqti isgelin nafsadaada adoo waqti gelin inaan waqti kugu sii bixiyo waxaan u arkaa qalad aan u arkaa runta hadaan ka hadlo ani muhiimadda waxay tahay ugu weyn waxaa fiican marka hore adiga iska soo bilow anigu waa idin sheegay qofka bini'aadanka asaga ha soo dhiirigeliyo asaga ha soo garab qabto asaga ha is caawiyo kadib waa la caawin karaa laakiin adigoo iska fadhiyo miyaad u baahan tahay in lagu caawiyo marka hore warbixinada raadi marka ku dhahay videoga maana ay video warbixina ka raaso kadib qalbki marka soo geetid qofka wuu ku caawin karaa yes qalbkii waxa haystaa darmarolkii waxa haystaa saliidda haystaa see wax yeelaa see xaalku u bilaabo waa lagu caawin karaa laakiin videoyaashan daawada intaas muddaan daawanay afkaas oo beenta iska dhaafa beenta wax ma ku kordhinayso qofka beenta ma ku kordhinayso wallahi inaan bidi sheegan waxaan xasuustaa dhalinyaro badan oo aad aan u jeclaystay waxay ku leeyihiin walaal wax fikradan ka hayna mala qalabkii waa haysanaa weligaa kuma daawanin ma fahantay laakiin nambarkaaga dadana soo siiyay saasay tahayna waxaan u baahnaa caawinad qalabkii waa kana walaal maxaa see wax yeela yes qofkaas niida u caawinayso qofna wuxuu kaaga bilaabaa been ayuu kaaga bilaabaa waa ku daawin jiray waa ku daawadaa ilaa haddaan ku daawada su'aaluhu ku weydiinayeen waa su'aalaha meelaha uu ku weydiinaya waa daawada oo ku dhahay waaye marka ma fiicno fadlan waa idin baraya jaanis siiya walaalihiina sida niyadda ugu baahan oo ka go'an tahay in la caawiyo inaan caawiyo jaanis siiya nimankaas iyo aniga isku baneeya
ani iyaga isgalayno yes laakiin aan waxaaba la yaabanaa qof bishii lixaad ilaa hadda su'aal la wado ilaa hadda bishii lixaad ilaa hadda waa bishii lixaad ilaa hadda su'aal ma fiicno su'aalaha iska socdo runta haddaan kaaga hadlo ma fiicna adigu kuma fiicna adigu waxa muhiima hor tijaabo nafsiyan gal wax markaad gashid fadlan aad wixii fahmi weyda markaas yes laakiin haddaad wax walba astiraada qabo aadan isku kalsooneyn ما فينا كلسوني ذو قالي كلسوني أبورو ما فهمتي كلسون نفس هذا وحقلي وحن شيء اللي الموضوع أنا استعمال شوي وقتها لا صديق نفس هذا مركوري كلسوني ذا صو أبورو كلسوني ذا صودس كورس كسو قاد حبقين اللي كل جابته محد كبقيسا فضلا منه إذا شيء نفس هذا وحن دمبي هين أو دبعتك هرعين حبقين إلا فيري دينيا دبعته جليسيد قف شخصي جليسيد هذه نفس هذا مركز عبورنين wixii laakiin markay wax diiniyan ay tahay oo dhibaato ka imaanayo oo dadka xataa ay kuga dhow ay dib ku tahay oo adiga dambi kaaga iman laakiin waxaan dambi kaaga imaan ayaa isku ciqaabaysa adiga isku ciqaabay markaas ciqaabinays caburin runta hada ka hadlo waxaatiin niman dhalinyaro niman da'yaraatiin marka intaas caburin leed adiga dhibaato ay isku geysan leed waxa fiican waxaan wax dhibaato ma leh wixii ina iska tijaabisid ma fahantay qofna waxaan dambi ugu keenin dhibaato ugu keenin ha ka baqin إلا واحد بعتها مجلسنس واحد دنبيا مجلس أنت أسبق أظن جلينين حبقين مركز عبرنت إسكت دافيسان إسكت عبرنت إسعبرنسان إسكت جوجيا وحان وحيابها ديك كان وحكمي ذا إسعبرنت وقفك إسعبريا قفك بلا آذيك الشخصية هذا إسعبرسيد وحمى قبل كرتين أذيك إسحري أذيك إسلوك جوي أذيك متقانا ديك جاب إسقلي كليجا أي إسعقابة مركز كليجا أنت إسعقابة تفلن وعافي عن إن هذا وحصل هذا قال رنت هذا كله إسكت جوجي وحيابها هذيك الشيء شخصيا كأسوء عقاب يصير إسكت جوجي هذيك أنت عقابته ذاك صوت تكتي بعد جانس وحنوصين لا هاي دليرتك إن عاون أبان أي نجور استاجي ساعة صوت هذيك سؤالها نوبتي سؤالها أو هذا هل سؤال إسكت صعطة أو إسبدل لحين ما فهمتي no way كوا أفعل حيكون هايان وقت إنا كوب بحنا مو بحنا كداون هذيك كصوّعنا يس فيري انتاس معنا كاس اسغا حاسنمه كما اها كنت اتكلم وح حاسنمه اي كتامله لكن اساس عقابه نفسيا شخصيا وميد قف اسغا شخصيا عقابه waa ما قف متقنا ان اي قلبيا كو متقنا dad xumay oo ka tahay maaha laakiin sida asaga nafsad haantiisa uu isku caburiyay ayuu ka hadlayaa marka fadlan waa ida bariya has caburinina has dhibaateynina nafis ilaa dambi ma galaysid dambi ma galis aniga hadaan bidaar leeyahay hadaan bidaar leen dambi ma galayo qofna dambi qofna ma dhahay war maxaa bidaar u yeelatay lagu ma ciqaabayo maxaad saan u tahay lagu ma ciqaabayo ilaa dambi ma galin Soomaa marka adi fadlan is caburinin nafsadaada fasax ka dhig waxaad geysanaysidna ciqaab ma aha oo xaq Ilaahay dambi kaaga imaanayso ma fahantu waxaan ba Ilaahay xaqiisa dambi kaaga imaanin adiga marka dhibaataha ka dhigin dhibaataha ka dhigin marka fadlan dhalinyarta yaryarna waxay leeyahay dadaal oo ka kaca fadhiga ka kaca insha Allah waxaan kaloo idin wadaana shaambooyinkan insha Allah noocyada hadda iftiinka ay dhibaayo Soomaa ma arka talays mar walba waa idin sheega mar walba koon waa idin soo galiya ma fahantay tan waa conditionkii waaye conditionka macnaha fiiriya idinka midna ogaada dhalinyarta madaxaaga agoolka markuu ku jiro ama taxab waxa uu taqaanid فضلاً وحوبانت مركو مدحاجة كبسوقة بدار مليد سوما أوكي كونديشن سوقا كونديشن كاس مركو محا أوباهنتا أفر لابد أسبوع أو جوه رئيس أفر مالين أو حريرة أوباهنتا لابد أسبوع أو جوه رئيس أفر مالين أو حريرة إنه كوكوبيستي ما أنت كوكوبيستنسا بريا كوكوبيستنسا بريكا كوكوبيستنسا أوكي أسبوع أفر مالين أو كوكوبيستي أوكي هدارت مالين دافو كوكوبيستي أفر مالين كوكوبيستي أوكي ولا قصة بحي سوما مع سمايس اسبوع على افر مالين كوكوبيس اسبوع كلو كسي خيغ لو مال كان كسي خيغنا لو مال كان كسي خيغنا اسبوعي هل مال اوكي مدحاga marka uu ka baaba'aya toxobta waa dadka toxobta kaliya la saaxiibka ah oo dhibaatada kale aan qabin oo inay wax suubiyaan u baahan dadkaas ayaan waxa leeyahay fadlan waxaad sameeysan toxobta waxa idin ka saari karo idin kala dagaalami karo inaad sidaas ku dadaashid isbuuca koowaad afar maalin ka marso isbuuca labaad afar maalin ka rumis isbuuca saddexaad laba maalin اسبوع افراد لو مال انت اسمع كل ما هو مدهل بالله يا محاكي استعماشي سديد مال الا يو افر مال كدر والله بي 10 مالين ايات استعماشي لبي 10 مالين ايا بشي دن كي استعماشي اوكي marka maxaa ka baabaayo
waxaa kaa baaba'ay agoolkii madaxii wixii ku jira dhan wuu kaa baaba'aya madaxaaga qaleelka waa ka baaba'ay wixii oo dhan baa imtixaana ka tirtirmaayo ma fahanta marka insha allah waa idinkula talinaya tala idinku siinaya dhalinyarta yaryar oon dhibaatada geysanayn ha iscaburinina idinkana waqti siiya walaalihiin kale aan jawaab siiya waqti siiya ma fahante runta haddaa idinkala hadlo oo sida daacada idinkugu sheego boqolkiiba 99 markaan dhaho dadka natiijada ila soo wadaaga dad ila soo hadla maaha waa dad casharada qaato isku kalsoon yes kalsooni war qofka markaa aragtay inay timo usoo baxday maxaa keenay alxamdulilah ilaahay baa horta bixiyo laakiin nafsiyan adiga isku kalsoonow adiga nafs koow qofka u baahan inuu is aamino adiga waa shakhsiga isku aamin yes isku kalsoonow macna nafsadaada ogow inaad wax walba qaban kartid laakiin da adiga kalsoonida nafsadaada aad ku qabtid ba ay tahay 20% 80% inaad isku kalsooneen aad kaga kalsoon tahay qof kale 80% nafsadaada aad kaga kalsoon tahay waa qalad waa mid ugu horeyso oo dhibaatada ku keenayso koow adiga isgeli adiga dhiirigeli isku kalsoon yes waa qaban kartaa soco waa awoodaa hadda intaas suubisid wax walba waa awoodaysaa shay walba oo la qabto guri haddii la lisaayo qofka waa inuu asaga marka hore nafsiyan kalsooni qabaa wax walba aad suubinaysid shay walba oo dunidan kor saaran oo ilaahay noo bani aad qabanaysid waa marka ugu horeysa waa inaad adiga is aamintaa isku kalsoonaataa is dhiirigelisaa adiga haddaad dhiirigelinta isku bilaayo ku dhiirigelinaya sheeg cid ku dhiirigelinaysa ma laakiin nin dansan cid kicinaysa ma leh qof ma taqaanaa hore u soconin qofka laakiin markii la arko wallahi wiilkaas way dadaal badan yahay wallahi gabadhaas way dadaal badan tahay ma fahant saas la dhahayaa qofkii macnaha marka hore u socod waa yes haddana markaas aad dhiirigelin helaysaa yes markii adiga aad dhiirigelis bulshadiina ku dhiirigelinaysa dadka hareerahaaga ah annaga aan ku jirno waan garab qabanayna laakiin marka adigaba low aad tahay kuma garab qaban karno marka waxaan ka wadaa janis isiya inaan walaalahay kale waqti la qaato aan waqti siiyo si aan u caawiyo saan mataqaana waqti badan ugu hore insha allah marka igan raan noqdo waxyaabahan ku hadlayo dhan xumaaniga ma waa waxyaabaha aan la kulmo aan arko ma fahantay sababtoo markaan arko qof aan janis la siinaynin kii kale oo janiska dhan asaga uu rabo inuu qaato waa 24/7 janis dad baa shaqada inay ku soo wacaan rabaan shaqada kugu sugaan no way aan telefoonka meesha uma soo gelin inaan shaqa liigu sugo ana waxaan soo inaan dad ku caawiyo ma fahantay inaan bulsho ku caawiyo waa ma fahantay maahan inaan hal qof oo shakhsi ah ma anta dhan la daldalmo maaha marka dhibaato hay arkina qiyaaray intaas noocay tahay waa muhiimada alla sababta ani kaligay ayaan ahay qof walbana waxaan jeclahay inaan caawiyo runtii inaan qof walba aan su'aasha hadaan ka jawaabi karo aan ka jawaabo su'aalaha aan ka jawaabi karana aan kama jawaabi karo Soomaa marka ina fahantaan in Allah idinku duwo dadka hadaladana qaybtood inaad fahantid oo dhanka wanaaga la aadidna ilaahay kugu duwo mar walba hadal walba inaad dhanka wanaaga la aadid aad u geysan laakiin inaan dad caawiyo ayaan jeclaa insha Allah marka akhyaarta waana mahadsantiin insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh